marka hore waxaan aad iyo aad u salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland reer barigu magac cusub oo bixiyay baa leeyahay Abu Xikmay u bixiyay marka madaxweyne ku-xigeenkan aad u salaamayaa waxa kale oo salaamayaa dhammaan mudanta kale ee halkan joogta waxaan run ahaantii aad iyo aad u salaamayaa oo aan mahad gaarana siinayaa guddidii halkan u dib jirtay nabadan inay dhaliyaan u dib jiray caruurahoodii iyo reerahoodii uga yimi qaarkood xanuunsan yihiin dhibtaa bilaha badan ugu dulqaatay inay idinka nabad idinka dhex dhaliyaan waxaan isleeyahay waa wax weyn abaalkooduna kaliya wuxuu noqon karaa wixii ay soo saareen oo sidooda lagu qaato oo aanay waxba ka daba imanin maanta mar waa farxad marna waa murugo waa farxad oo qodax wadnaha inagaga taalay bay maanta inaga fuqaysaa insha Allah taala nabad baa la gaadhayaa oo ceelaf weyn intaasoo wasiir iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxdii xisbiyada qaranka waxay isugu yimaadeen inay idin tusaan inay qalbiga idin kala socdaan inay idin tusaan inay horumar idin jiheeyaan inay idin tusaan inaan waxba la idinka hagran ee sidii ceelaf weyn horumar loo gaadhsiin lahaa laga shaqeeyo haddii Ilaahay yiraahdo marna waa murugo waa isgunnimo disheen inan ayaa walaalkii oo hooyadii dhashay in adeerkii rumi dilay markaasuu isagoo qoslayo faraxsan soo ag fadhiista waayo kana ilmaadeerka yiin bay ilmaadeeriyiin ka ay walaalaha yihiin ee hooyadii dhashayna waxba isuma gunnimo ka weyn ma jirto maanta gobonimadiinu waxay noqonaysaa idinkoo halkaasi ka sii wada oo nabadda qaata annagana xukuumad ahaan waxa naga go'an inaan nabadda isbarbar taagno kaliya aanan isku barbar taagin ciddii dhibaato geysato oo shaqo laga qabtee inaan isku barbar taagno horumar inaan isku barbar taagno degmadan in xaalad gaara la geliyo oo sidii wax loogu dooni lahaa horumar loogu dooni lahaa laga shaqeeyo haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku soo gabagabaynayaa maanta qarnigii 21aad oo aan ognahay dunidu halkay maraso reer ceelaf weynow bal isku noqda qof walba gaar isula faq damiirkaaga la sheekayso ubadkaaga ubadkooda eeg noloshay ku jiraan eeg inta aad adigu taa ku leedahayna eeg waxa kaga saari kartaan idinkoo qalbiyadiina isu fura idinkoo Ilaahay ka cabsada idinkoo dadkiina ehelka ah ee walaalaha ah wada dhashay ee inan iyo inantii abtigii maanta dhinac u wada jeesta waxyaabaha murugada leh ee aanan anigu horeba ogeyn maantuna ogaaday inaydaan xitaa salaadaha qaar isku xiran baa la sheegay waa halkii ugu xumayd weey in qibladii iyo xaqii Ilaahay loo wada jeedsan kari waayo xaqdi aawadii waa mushkilad Ilaahay dawaan idinka baryeena waan idin ducaynaynaa waan iskiin garab taagaynaa waa idin waaninaynaa horumar wixii awoodeena ah baan idin keenaynaa waan idin la shaqaynaynaa wallaahi daacad baan ka noqonaynaa sidii ceelaf weyn hore u mari lahayd nabadina uga xasili lahayd nabadaasi hadday keensanayso in la idinku karbaashana waa la idinku karbaashaya haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah waa mahadsantiin wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh